dhammaanba jawiga ayaa mar qura isbedelay. Hawaduna waxay noqotay midabka casaanka amba guduudka kadib markii ay Iiraan boqolaal gantaal ay ku soo riday Israa'iil, gaar ahaan caasimadeeda Tel Aviv. Waxaa shaqayn waayay dhammaan gantaalada ka hortaga gantaalada la soo gano. Dhammaan raadaalada ayaa iyaguna sidoo kale shaqayn waayay. Madaafiicda iyo gantaalada ay Iiraan soo ridaysaa waxay si isdaba joog ah ugu hoobanayeen gudaha Tel Aviv. Haddaba arrintani maxay ka macno tahay? Maxay macnaynaysaa duqeynta Iiraan ay u geysatay Israa'iil iyo jawaab la'aanta Israa'iil iyo in Israa'iil ay ka argudato Beirut amba Lubnaan halkii ay ka argudan lahayd amba jawaab degdeg ah ay ka celin lahayd weerarka kaga yimid dhankaasi Iiraan. Wargeysyada arrintan wax ka qoray ayaa sheegay in Israa'iil kaashanayso ay dalab degdeg ah ka doonayso Mareykanka oo ahaa mid awalba garabkeeda tagan. Iiraan weerarkaasi la yaab kale ee adduunyada ka yaabsaday waxa ay raacisay haddii Israa'iil ay ka soo jawaabto inay tahay baabi'ii Israa'iil ay kala kulmi lahayd haddii ay isku daydo inay ka soo jawaabto gantaaladaasi ku dhacay. Maalinkii Jimcaha ahayd ee ku xigay weerarkaasi, Ayatollah Ali Khamenei waxa uu masaajidka weyn ee Iiraan ku yaalla uu ku galay khudbadii Jimcaha. Malaayiin dad reer Iiraan ayuu halkaasi kula hadlayay. Dadku waxay indhaha ku hayeen inuu weerar kaga iman doono xaggaas iyo Israa'iil, laakiin taasi may dhicin. Taasina waxay u muuqataa Israa'iil inay fashilantay. Wargeys ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inaan loo baahnayn xabad joojin ay dalbanayso Israa'iil iyadoo doonaysa inay dhulka la sinto Lubnaan iyo Xisbullah iyo Lubnaan waxay ku awood badan yihiin dhanka dhulka, waxaana taasi ku tusaysaa weeraradii ugu dambeeyay ee Israa'iil ku qaaday Lubnaan ee dhanka dhulka ahaa waxa lagaga awood roonaaday oo caskariyan ku dhaawacmay Israa'iil. Dhowaan ayay ahayd markii Sirdoona oo sirdoonka ugu sarreeya ka mid ah Israa'iil uu fashiliyay inay bishii la soo dhaafay ay ka geeriyoodeen 10,000 oo askari. Waxa kale oo uu si badheedh ah u sheegay inay bil kasta diiwaangeliyaan 1,000 askari inay kaga dhinteen dagaal kasta.